Sidii caadaduna ahayd kelmadda sirta waxaad ka helaysaan muuqaalka dhexdiisa. Bismillah, asalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Xalay muuqaal ayaa idin ballan qaaday walaalayaal, laakiin ii noqon weyde, sidaa darteed waa idinka raali gelinaya. Midda labaad waxaa idinku mahadcelinaya kunka subscribe, aad iyo aad u mahadsantiin. Dad badan ayaa u arka kun subscribe wax yar, laakiin ani xaggayga waa wax weyn. Waxaa kale idinku codsanaya inaad like saartaan, aad share garaysaan. Sidaa thumbnailka aad ka aragteen waa su'aalihii jawaabo walaalayaal. Su'aalo badan iyo jawaabahooda faahfaahin badan ayaa samayn doonaa ila socda. Nambarka koowaad, gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday anigoo magaalo kale u safraay, sida qoraalka idinka muuqda. Safarka micnooyin badan ayuu tilmaamaa. Wuxuu tilmaamaya isbeddel nololeed. Wuxuu tilmaamaya ficlan safar, yacni wuxuu tilmaamaya sida xaj oo kale, cimro oo kale. Wuxuu kaloo tilmaamayaa safarka arsaaqad. Wuxuu tilmaamaya haddaad matalan magaalada aad markaa u safraysa ay ka wanaagsan tahay midda adi aad joogtay. Waxay tilmaamaysaa isbeddel nololeed oo aad u fiican. Wuxuu kaloo tilmaamaya safarka aragtida wax shay adiga kaa qarsanaa mise aanan ku baraarugsanayn. Micnooyin aad u fiican ayuu leeyahay safarka. Wayna badan tahay laakiin hadda waa soo koobay inta muhiimadda ka hadlaa maadaama ay su'aalihii jawaabo tahay. Mawduuca labaad, gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday adiga walaashay oo mooto saaran. Mootada sideeda wax walba oo socdo sida gaariga oo kale, tareenka, baska, wax walba oo socdo sideedaba culimada riyooyinka fasira waxay ku tilmaameen xayaatada bini'aadanka, qofka noloshiisa. Marka sida u socday qaabka u socday waa muhiim. Hadduu qaab deganaa oo xasilooni deganaasho ku jirta u socday, rabama adii walaasha arrimo wanaagsan ama mushtarag ah ka tihiin mise iyada ay ku waanisa matalan haddii wax qalad adiga ay ka dhacaan oo kale inay ku hagaajiso ay ku tiraahdo waxa qalad waa inay ku saxdo, inay wadada fiican kuga hagto, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay yacni dhaqan waxay doontaa haato ayay noqon kartaa. Haddii laakiin mootada ahayd mid xawli ku socoto oo xakameyn lahayn, waxay tilmaamaysaa rubama adii walaashaaba yacni iska ciyaalnimo idiin haysaa oo mise midkiina midka kale yacni wadadan u saxiinin. Maadaama walaalaha badanaaba sidii saaxiibo kale yihiin oo isku kalsoon yihiin oo waxay isku sheegaan, waxay matalan walaashay ii sheegto kale waan kaga aaminaad badanahay saaxiibadeeda. Sidaa darteed marka rubama qaladaadkaada isku saxiinin hadday mootada ahayd mid xawli ku socoto aanan hagaagsaneyn oo kale. Laakiin iyadoo normal u socoto oo wax walba okay yihiin, waa jabigiina noloshiina iska okay ah. Xayaatada bini'aadanka ay ka hadlaysaa. Sidoo kale aragtida mootada hadday ahayd mid qaylinayso codkeeda matoorkeeda yacni mootada zaid u qaylinayo dhiga xanuun waxaa yacni waa dareemi kartaa mooto ciladaysan oo kale. Hadday ahayd taa waxay tilmaamaysaa mashaakil yar oo familka ka dhex jiro oo insha Allah iska hagaagi doono. Aragtida mootada ma xumo haddiiba sida aan idiin sheegay tahay normal bay iskaga socotay. Gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday meel wadaa anigoo jid ah ay tiri anigoo dahabka aroorsanaya sida qoraalka aad ka aragtaan. Aroorsashada dahabka culimo qaar waxay yiraahdaan riyooyinka fasiray ma fiicna gabadha haddaan la qabin ay yiraahdaan. Laakiin markaan aad baaritaan ugu sameeyey aad u barbaaray walaali caadi ahaan aniga waxaan ka soo xigtay kitaabyo aan akhriyo. Marka baaritaan badan aan ka sameeyey waxaan arkay aroorsashada dahabka inay dumarku fiican tahay. Li'aanu ani waxaan ogaa caadi ahaan bariyada dahabka dumarka inay aad ugu wanaagsan tahay. Aan xumaanba aanu ku jirin. Marka halka shay ayaan diidanaa way loo dhahay gabadha la qabin iyadoo dahab aroorsanaysa ma fiicno. Marka baaritaan badan aan ku sameeyey waxaan arkay aragtida dahabka gabadha haddaan la qabin inay aad u fiican tahay. Waxay tilmaamaysaa arsaaqad, waxay tilmaamaysaa guur, maal ay tilmaamaysaa, waxyaabo badan ay tilmaamaysaa. Sidoo kale gabadha la qabo hadday ku riyooto iyadoo dahab aroorsanaysa awlaaday tilmaamaysaa uur. Gabadha xaamilada wiil ay tilmaamaysaa inuu Rabbi ku arsaaqayo. Marka hal maada ayaa jirta dadka maanta riyooyinka soo weydiin inta badan xaaladooda ma soo raacinin in la qabo inay gabariyeen. Marka waxyaabahaas oo kale waxaa fiican inuu qofka soo raaciyo si oo wax yar mooyee
dadka badanaa ma soo raacinin si aan matalan fasirka reeda iyo qofka xaaladda uu ku sugaya isku waafaqaan ayaa muhiim ah. Gabadhan waxay tiri waxaa ku riyooday qof aniga aan kor ka aqaano sida reeda dhexdeeda miya ma aqaano, caadi ahaan may ka wadaa ma garanayo, laakiin waxay tiri qof aniga sidii aan kor ka aqaano kale yahay ayaan arkay meel kabacdi buug ayaa waxaa ku qornaa wiilka magaciisa iyo magaca aabihiisa magaca awowgiisa waxay tiri si fiican uma aqoonsanin ahamiyad ma laha, muhiimad waa magaciisa. Marka ayaa riyo ku arkay waxaa wanaagsaneed inaad magac soo raacisid matalan haddii xaaladaad in gabar la qaba tahay waxyaabahaas oo kale, li'aanu markaad aragtid qof qariib ah yacni magacaas aa aragtid magac micno ayuu leeyahay, micnooyin badan ayay leeyihin, laazim yacni waxaa wanaagsan magac inaad soo raacisid. Yacni ramsiga riyadaba wuxuu ahaa magaca, laakiin magaca ma soo qorin. Insha Allah waxaan rajeynaa muuqaalka markaad daawatid magaci inaad kusoo qortid qaybta komitiga. Gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday meel meherad ah, meel yacni suuqa matalan sida dukaan oo kale anigoo ka iibsanayo toob. Toobkii nin ayaa u talaayay, maxay tiri mar inuu iga gaaban yahay ayuu u ekaa, mar kale uu ii sameeyey isla sidoo kale qoraalka uu dheeryahay inta muhiimadda aan kasoo qaata. Muhiimadda waxaa weeye adigoo toob iibsanayo mise tolanayo toobkina kula ekaanin, waxayna tiri gabar ahay yacni weli ma guursanaysin galahay المهم حتى يعني حتى hadday garoob tahay ahmiyad ma laha yacni almuhim lama qabo. Haddii aad ku riyootid adiga aan lagu qabin toobka aan kula ekeen, toobkan uu yahay toobyada yacni labiska kuwa xafladaha lagu aado mise kuwa gabdhaha aroosada xirtaan mise kuwa iska quruxsan oo adiga magaalada banaanka looga baxay ay yihiin, toobabkaas oo kale kula ekeen mise ciriiri kuga ah mise kaa gaaban mise si kaa yihiin oo kaa weyn yihiin, waxyaabahaas oo kale haddaa aragtid waxay tilmaamaysaa qof matalan noloshaada ku jiray mise kusoo biiraya yacni qof guur waxyaabaha xiriir waxaa kusoo bandhiganayo cillado yar ayaa jiro mise isfahan daraa jiro mise calaf ayaanba jirin mise waxaad u baahan tahay salaatul istiqaara. Haddii xaaladahaas oo kale adiga aad ku sugan tahay qof aad wada sheekaysataan isfahan iyo waxyaabahan dhexdeena yaalin salaad istiqaara ka tuko, waayo guur ay tilmaamaysaa laakiin aanad dhamaystirmaynin aan hagaagaynin yacni wax ka dhiman mise wallahu yaclam kulli xaaladda adiga aad ku sugan tahay waa muhiim. Haddii arrimaha jiraan yacni in badan istiqfaaraad la imaan kartaa, rabbi wuu hagaajin karaa, ninkaas hadduu xun yahay hataa ilaahay wuu hagaajin karaa, haddii meel kale dhibaatada ka jirto rabbi wuu yasari karaa. Gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday wiilka xiriirka leenahay eedadiisa oo ii faraxsan, eedada wiilka familka yacni wiilkaad xiriirka leediin familkiisa ka mid tahay eedadiisa yacni waxay ka mid tahay ehelkiisi ehelka wiilkaad xiriirka leedihiin waxay tilmaamaysaa guur soo dhow, waxay kaloo tilmaamaysaa isfahan isku xirnaasho adiga wiilkaas iyo familkiisi ayay tilmaamaysaa. Sidoo kale waxay tilmaamaysaa labada ahal oo isfahmaya ehelkaaga iyo ehelkiisa isfahmayaan wallahu yaclam. Gabadha waxay tiri wiil aan xiriir lahayn oo hadda isqalaafsanahay ayaan ku riyooday soo dhigta wax iigu sheegay. Inta badan riyooyinka noocaas oo kale waa axaadiis nafsi riyo ma dhihi karno. Insha Allah waa baari doonaa muuqaal u gooni ayaan kasoo samayn doonaa hadday lacala riyo tahayna. Waxaa jira qof aan fasirka riyadiisa aan ka tagay li'aan waxaa fahmi waaya qoraalka, walaalayaal waxaa muhiim ah qoraalka inuu qofka saxo li'aanu fasirka riyada waa yacni mas-uuliyad weyn layskama fasiri karo. Halkaasaan kusoo koobaya laagna saaranoona sheer gareeyo. Assalaamu calaykum.